hooyo Safiya Cabdi Miigane oo ah hooyo danyar oo ku nool magaalada Boorama isla markaasina la tabaalaysan xanuuno kala duwan oo soo food saaray jidhkeeda ayaa waxay maanta bulshada islaamka ka codsatay in la soo caawiyo si ay dhakhtar u geysato wiil ay dhashay oo muddo dheer ka xanuunsan. magacaygu Safiya Cabdi Miigane ah oo Boorama ah oo iska xanuunsanaysa oo macaan loo dhikar leh ilmaheeguna curyahay halka jiifa sarta dusheeda 20 sano intaaba walaalwaan qabaa ninkii soo caawin karay inuu soo caaw gurigu waa igu kiro anigu macaan dhikar baan leeyahay dawooyinku waa igu qaali beelkii reerka waxaan ka meel laga soo saaray mal waxaan ku iibsada ma haysto waxaan bulshada islaamka ka codsanayaa inay soo caawiyaan meeshii joogaanba 60 50 953 waxay u taraysaa halka ay igu soo gajay lambarka waxaanu saaka soo gaarsiinay iyadoo debdemisa Safiya Cabdi Miigane maadaama uu gurigu la'aan uu ku ahaa waxaanu u dirnay walaalaha muxsiniintii waxay soo direen $150 ayaynu guddoonsiinay isla markaana mobilkeeda aanu ku dirnay Safiya soo lacagtaan naga mays alxamdulillah waxaan leeyahay ummadda islaamka mucaalam islaam qof kasta wanaaga jecel inuu ka qayb qaato anigoo ah baahda tiktokerada waxa weeyaan tacaawanu cala albirri waxa weeyaan irhamu fil ardi yarhamukum fis samaa marka aad arlada yani ilaahay naxariista isku naxariista si ilaahay idinku naxariisto waxa weeyaan inaga waa waajibna saaran inaynu magaraysa kuweena public speakerka ama hadli karaay ay u hadlaan kuwa aan hadli karin oo codkoogu meel dheer una gaari karin taasina waa taan saacadaasi iyo xilliga qorraxdu ay kulushahay aan isku soo hawlnay isagoo qof walba investmentkiisa iyo hawshiisa qaba alxamdulillah baan leenahay cid kasta oo tabaalaysan waanu gaari doonaa walaalaha muslimiinta ah kuwa wax la baxaya muxsiniintana halkaad ka soo saarteen bedelkeeda ilaahay idinku bedelo miisaanka xasanaadka idinku daro walow anaguna aan ka qayb ahayn dadaalka yareysan mayno ducana waan ugu daraynaa haddii maanta uu jirto caafimaad ama cid iibsanaysa Safiya Cabdi Miigane ayaa lacag siisan lahayd oo ku gadan lahayd wiilkeeda caafimaad ugu gadan lahayd iyadu iibsan lahayd caafimaad sababtoo ama helin taasina waxay ka timiday xagga ilaahay maadaama ay xaaladdu xagga ilaahay ka timidayna علينا نشكر وحنقول واجبنا وشكر